kala socotaa lacagaha dawladda ay ku bixiso baraha bulshada. Kadib doorashadii 8 Febraayo waxaa dhaqanka siyaasadda Soomaaliya ku soo biiray bixinta lacag joogto ah oo lagu bixinayo baraha bulshada. Bixinta lacagahan oo dawladdu u xisaabtay dad gaar ah ayaa waxa ay u qaybisay laba shabakadood. Shabakada koowaad waxa ay qaabilsan tahay dacaayadda cid walba oo ka aragti duwan dawladda sida siyaasiyiinta, culimada, saxaafadda, aqoon-yahanada iyo haweenka. Shabakadan ayaa u dhisan qaab cajiib ah waxayna u qaybsantaa 3 qaybood. Qaybta koowaad waa qaybta loo yaqaan comments-ka. Qaybtan waxay qaabilsan tahay in la isku bahaysto qoraalada ka dhanka ah dawladda. Qof walba oo ka mid ah qaybtan waxa uu leeyahay 10 Facebook. Inta badan erayo isku mid ah ayay isticmaalaan sida qarandumis, mooryaan iyo waxyaabo la mid ah. Qaybta labaad waxay qaabilsan tahay boostiyada ama qoraalada lidka ku ah siyaasiyiinta mucaaradka ah. Inta badan wax ma soo qoraan marka laga reebo culays dawladda soo food saaray ama siyaasi wax ka sheegay. Qaybta saddexaad waxay qaabilsan tahay muuqaalada tooska looga hadlo ee loo yaqaan live-ka, waana qaybta ugu mushaarka badan. Inta badan dadka isticmaala baraha bulshada qaybtan waa ay garanayaan. Shabakada labaad ayaa ka khatar badan midii hore. Shabakada labaad dadka kuma baraarugsana intooda badan, mana aha kuwa mar waliba hadla. Waxay isugu jiraan siyaasiyiin, culimo caan ah, aqoon-yahano iyo odayaal. Waxaad ku garan kartaa waxay hadlaan marka dawladda ay fashil dhexda ka gasho. Sababta ay uga bedelan yihiin shabakadii hore ayaa ah in si xirfad ku jirto ay dadka u bedelaan ra'yul caamkooda iyagoo adeegsanaya shaarka markaasi u xiran sida wadaad, nabadoon ama aqoon-yahan. Shabakadan waxaad ku garan kartaa waxay soo hadlaan marka dawladda haysto culays dhanka shacabka ah. Markii la isku daro shabakadahan ay dawladda isticmaasho waxaa la dhihi karaa inta badan dadku waa ay fahmeen kuwa yar mooyee.